Jimciyatu Ar-Raxma waa jimciyad u taagan siday dadka danyarta u garab istaagi lahayd. Gudoomiyaha jimciyadda Samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka oo maanta dad danyara gaarsiiyay raashin kugu jira daqiiq sonkor. Haddaba gudoomiyaha oo ka warbixiyay waxa uu yidhi waxa weeyaan Jimciyatu Ar-Raxma hooyadu waa xalqatu Abu Bakr Sidiiq khayrkum ba khayrkan dhalay ma aha waxa weeyaan laba hawlood oo kala socda ma aha oo xaqii xalqatu Abu Bakr Sidiiq ahayd baa la yiri Jimciyatu Ar-Raxma ka bacdi waaga taariikhda jimciyadda hadii aan ka sheegay 2013 markii aan bilownay kulli qoysas yar oo kooban baan ku bilownay 10 qoys baan ku bilownay ilaa markii dambe ay gaadhaan dhowr iyo 50 qoys ay gaadhaan ilaahay fadliga haddana dhowr iyo 50 qoys markii ay gaadheen sanadadii dambe ilaahay waxa weeyaan ummadan firash buu furaya jimciyaddii hadda ahaan 2021 maanta aynu taaganahay bacda 9 sano ka bacdi waxa ay jimciyaddii ilaahay firash intii kala ofar 15 qoys baa ku soo haray insha Allah 15 qoysna ilaahay waxaan ka rajeynayaa haduu la yiraahdo inuu iyagana firash khayr qaba uu furo dadka walaalaheen dhibaataysan ee magaalada Denuguloona ilaahay iyagana firash khayr qaba Allah siiyo dambigeegana Allah dhaafo dambigii walinteena Allah dhaafo marka jimciyaddu waxay u taagan tahay dadka xaafadda ku nool marka jimciyaddu halkay wax ka keentaba hadana meesha taala Jimciyatu Ar-Raxma hay'ad wax ma doonto dawlad wax ma doonto laakiin xaafadan Sheedeer iyo Cali Balaak ayaa isku tashaday ganacsatadeeni waynu ognahay jimciyaddu shaqadeedu waa 3 qaybood ee jimciyaddu ay ka shaqeyso kow waa dadka masaakiinta raashinka loo gurayo oo gaadiid bay leedahay inaga gaariga waxa weeyaan waa ka loogu shaqeeyo raashinka dad lagu guro kabacdi waxay kala ka shaqeysaa dadka xaafadda qofka ay ku timaado geeridu tii ilaahay ay ku timaado ilaahay u oofsado iyadana way u shaqeysaayo gaariga waa loogu shaqeeyaa waxa kale oo ay ka shaqeysaa jimciyaddu dacwadda oo dadkii waxa weeyaan raashin la siiyay in dacwadii diintii waxa weeyaan la faafiyo oo ummadii la isku sheego waayo waxa weeyaan dardaarankii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ay ahaa ninkii hal aaya garoonka aan garan hal aaya kale diga gaarsiidii wayna wada oo dacwadiina wax weyn maxaadirooyinka inaan qabanno waa la wada socdaa dhamaan xaafadu imika waxa ku soo yar biirtay oo kale in xaafada kulay jimciyadu way sii socotaano dad iyagu naga yar halaaba ciyalka yar halaabo kale in dadkii loo yar baafiyo taana waa khayr qof walaalkaayo oo dib ay ku dhacday in dibtii aad ag joogsato taan way tala marka insha Allah waxa weeyaan khayrkaas ayay wada jimciyadu dadaalkaas ay wada marka taariikhda inta leegna jimciyadan way soo martay marka insha Allah waxaan maanta baaq aan u dirayaa baaq clipka aan duubayno annaga nagama aha isla weyni nagama aha istusnimo nagama aha wax kale laakiin maanta waxaan baaq u diraynaa dadka islaamka ayaan baaq u diraynaa waxaan baaqda ugu diraynaa waa 15 qoys ee jimciyadu gacanta ay ku hayso ee maanta raashinka aanu halka aan ugu qaybinayno agoon iyo dad waxa weeyaan xaajigu ka bilaan amal yahay bay isku jiraan marka insha Allah in maalinta ciida aynu ka farxino insha Allah qof walba wixii uu awoodo waxa weeyaan lambarkii Jimciyatu Ar-Raxma haday Somtal tahay iyo haday Telesom tahayba halkaas waa ka waxa weeyaan ku qoran marka insha Allah waxaan dadka islaamka muxsiniinta oo dhan aan baaqa aan ugu dirayaa inay ka faa'iideystaan khayrka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad baaqayga aad ka soo jawaabto ragii xalqatu Abu Bakr Sidiiq asaasayna khayr Allah siiyo gudoomiye koowaad xalqatu Abu Bakr Sidiiq wuxuu ahaa Mustafa Umar Cige oo imika murashax ka golaha deegaanka 2003 runtii ninba markuu sayidku dhintay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa kadib buu gabay qaaday wuxuu yiri alla ilaahay buuriya sayidkii soo nooleeysiyo gabay noocaas ah gabay kuma fiicnee dabeetana aflama daaliyay daacad uu sheegay buu leeyahay marka wuxuu ka sheekaynayaa in dabkii uu shiray rag dogobyo sii saaray marka dabkii uu sheegay sayidku in rag kalena sii wadeenoo sidii xornimadii lagu helay ayuu ka hadlayaa moogta si ragga hore dhalinyarta dambe ilaa maanta 2013 ilaa maanta saxaafadda ugu dadaalaysana khayr Allah siiyo ilaahay ayad quraan wuxuu ku yiri walaa yaxudu ala ta'amil miskiin marka waxa la walaa yaxudu kuma dhiiri gelin dadka ala ta'amil miskiin in dadka miskiinka wax la siiyo marka aakhira waxa la isku qabsan doonaa wax siinta masaakiinta la isku qabsan doonaa maxay ugu dhiiri gelin weydaa la isku qabsanaya Allah inoo saalo dadka maxaad ugu dhiiri gelin weyday in wax la siiyo
ayaaba la isku qabsanaya marka jazaahumullahu khayr aljazaa jamciyada aad loola shaqeeyo khayrkaas ay ka shaqeynayaan waana hawl inoo wada taala wabillahi tawfiiq baaq wadirayna dadka muxsiniinta ee sadaqada la soo baxay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu buuxiyo kulli jamciyadu raxma waxa u taagan tahay anagu waxaan u taaganahay dadka masaakiinta iyo wixii masaakiin ee tawaalaysan ba in la caawiyo kulli tooliya iska wadarin isku xilqaaday waxa loo baahan yahay in la garab istaago had iyo jeer oo waxay uga baahdaan in hooy heliyo hoob la garab istaago kulli jamciyada gudoomiyaha ka soo horma ku noqon maayo taariikhdeeda laakiin halkan waxaan ka sheegayaa dadka muslimiinta in ay walaalahooda muslimiinta ee tawaalaysan iyaguna u soo gargaaraan waa maxamed qalle cismaan sayl camiiriya magaalada Boorama